maalin wanaagsan saaxiibayaal qodobada wararka maanta waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya oo si qarsoodi ah magaalada Laascaanood kaga dejisay General Jimcaale Taakar hadaba yaa ku weheliyo safarka uu ku tagay magaalada Laascaanood faafayntii ugu dambeysay xogta sheegayso in uu maanta barqanimada ah uu doonayo in uu gudaha u galo magaalada Garowe ee gobolka Nugaal Puntland oo ciidamadii ugu badnaa diyaarisay si ay uga hortagto ciidanka Jimcaale Taakar ee ka degay magaalada Laascaanood faafayntii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa xiisada culus ee saaka ka taagan magaalada Garowe ee gobolka Nugaal dagaalka laga baqdan qabay inuu ka dhaco halkaasi iyo waraarintaasi ku aadan qodobada kale waxa ka mid noqon doona dawladda federaalka Soomaaliya oo mushaaraadkoodii u fasaxday askarta hoostimaada General Jimcaale Taakar ee ku kala sugan gaalkacyo xaafuun boosaaso Garowe ilaa iyo Laascaanood barnaamijkeena ayaynu ku jeexi doonaa sidoo kale waxa la wadaagi doonaa beesha uu ka dhashay madaxweyne qoorqoor oo ka hortimaaday in liibaan shuluq loo sharxo xilka madaxtinimada ee maamulka Galmudug soo dhawaad saaxiibayaal qodobadaas iyo kuwa kale ayaynu idin wadaagi doonaa ee aan ku bilaawno wararkeena magaalada Garowe ee gobolka Nugaal waxa ka taagan saaka xiisadaad culus iyadoo laga baqdan qaba dagaal aad u culus inuu halkaasi ka dhaco ka gadaal markii Puntland heegan ay gelisay ciidankeeda dawladda federaalka Soomaaliya maalintii shalay ahayd ee gilinka dambe si qarsoodi ay kaga dejisay magaalada Laascaanood General Jimcaale Taakar oo xogaha qaar ay sheegayaan inay wehelinayaan ciidamo gaar ah oo ka tirsan kumaandooska Gorgor kuwaas oo lagu biirinayo taliska qaybta 52 ee dib loo aasaasay burburkii kadib hadaba xoguhu waxay sheegayaan in Jimcaale Taakar uu maanta doonayo in uu qaab infantry uu ku galo magaalada Garowe halka ciidamada Puntland ay heegan buuxa ku jiraan dhawaan waxa dhacday in Puntland ciidankeedu ay si adag uga hor yimaadeen ciidamo mucaarada kuwaas oo mid kamid ah mas'uuliyiinta mucaaradka galbinaya oo gudaha magaalada Garowe ku wajahna maanta waxa laga baqdan qabaa in General Jimcaale Taakar iskoorimaad hubaysan uu dhaxmaray ciidankiisa ee isaga daacad u ah ee heeganka ku jira iyo ciidamada Puntland ee iyaguna heeganka la geliyay kaga markii Jimcaale Taakar uu dib ugu laabtay magaalada Laascaanood kadibna uu doonayo inuu tago Garowe Puntland golaheeda wasiirada oo horaan fadhiistay awaamir ay soo saareen waxaana ay hayeen mid kale ah General Jimcaale Taakar madaxweyne Dini ayaa lagu soo waramayaa in ismada Puntland uu kala hadlay in Jimcaale Taakar uu waaran soo qabasho ah u jarayo isla markaasina ay ka hortagayaan dagaalna ay la galayaan aysan aqbali doonin in uu ciidanka iyo hubka uu keenay ee la sheegay in yihiin qaybta 52 inuu ku haysto qayb ka mid ah deegaanada Puntland xaaladda aad ay u kacsan tahay dagaal ayaana laga baqdan qabaa dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya waxay mushaaraadkooda u fasaxday ciidamada militariga Soomaaliya ee ka tirsan qaybta 52 ee hoostaga General Jimcaale Taakar kuwaas oo lagu soo waramayo inay ku kala sugan yihiin meelo badan oo ka mid ah deegaanada Puntland sida xaafuun boosaaso gaalkacyo Garowe iyo sidoo kale magaalada Laascaanood ee xarunta dawlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya meel kale oo xitaa galdogob ay ka mid tahay ciidankaasi way joogaan mushaaraadkoodii oo min 300 ayaa u dhacday iyadoo oo wali bishu aysan dhamaanin tan waxay ka dhigan tahay siinta xuquuqdooda waxaana isla timaaday gaarista oo uu gaaray magaalada Laascaanood Jimcaale Taakar iyo xuquuqdii ciidanka oo hal mar la wada helay hadda waxa iswajahayo Jimcaale Taakar iyo Saciid Cabdullaahi Deni fagaaruhuna waa Garowe oo uu gordhow ku wajahan yahay General Jimcaale Taakar isaga ciidankiisa gaarka ah ee ay ku dartay dawladda federaalka Soomaaliya xiisada Puntland ee dawladda federaalka ayaa muuqdo inay fikta sare gaarayso geeska kaleetana ciidankan iyo maleeshiyaadkan hubaysan waxa ay ka soo jeedaan beesha uu ka dhashay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor waxay ka soo jeedaan liibaan shuluq wayna ay diidan yihiin in dawladda federaalka Soomaaliya halkaas ay geyso maadaama dawladdu ay musharaxa xisbiga JSB ee Galmudug ay u sharaxday liibaan shuluq Galmudugna Qorqor uu ka tanaasulay oo booskiisu u buuxin doono liibaan shuluq waxa ay ku hanjabayaan in garoonka Cadaado uusan ka soo degi karin musharax liibaan Axmed Xasan liibaan shuluq oo xisbiga JSB ka sharxan lana leeyahay waa ninka madaxweynaha Galmudug ee magacaaban ba xilligan ka ah maamulkaas marka loo fiiriyo doorashadan iyo qaabka mucaaradku ay warkaan gudaana warkeena waa inta waxa rabaa in la wadaago codadka askartii mushaarka hele oo hadlayo iyo sidoo kale dhinaca kale askartan ka tirsan maleeshiyaadka beesha uu ka dhashay madaxweyne Qorqor oo iyaguna hadlaya haddii naloo diido oo aan weyno airportkaas inaysan diyaarad qaad soo aadi iyo wadada wadan baawur marayn soddon dheyd oo aan ku lahayn airportkaas oo ninkii lagu furay airportkaas oo qofna ka soo degay diyaarad ugu horeeyay ninkii ka soo dejiyay airportka caadi oo qofka qaada jiran
cadaada ka qaad waa ninkii ugu horreeyey ninkaan ka soo dejiya airboortka cadaada maantana heerka uu marayo dadkoo dhan waa ogyihiin sidaan diidan ka digi jiray labadii baa layga siiyey labadii dheyd oo layga siiyana ayadoo bilaa amar ay liibaan iyo nin liibaan axmed xasan iyo nin xagga u fadhiya oo la yiraahdo Umar Shido amar waxa lagu bixiyay in la ka joojiyo waxay la kaga joojiyana garamayno waxa uu sheegay ummadda islaamka oo la maqlaysa haddii naloo diido oo aan weyno airboorkaas inaysan diyaarad qaad soo aadi iyo wadada wadaan baawur marayn diyaarad qaadaan soo degayn wax qaybtiiba ogolaaday meesha ugu yareed ayuu ka qaatay oo 2 maalmood iyo bar isagoo dadka walaal jecli iyo ehelnimo iyo dadka inaysan waxba kala ahayn isagoo sidaas ku shaqaysay jiray oo wax dooda iyo wax dacwaa midna aan qabin intii yartaayada uu meeshaas uu ka qaday jiray uu ogolaaday oo walaalkeen aan niri ku raali noqday ayaa intiina lagu faragashay salaan kadib waxaan galabta u taaganahay meeshaan walaalkeen Cabdulqaadir Maxamed Afweyne ganacsadaha reer Galmudug oo dhan ay taqaano oo nin in badan deegaanka Galmudug ganacsi ka ahaa la yaqaano oo galabta waxaan u taaganahay meeshaan arrin ka dhacday airboortka degmada Cadaado waxa uu imaan jiray qaadkii uu imaan jiray wuxuu lahaa 30 dheyd uu keeni jiray 30kii dheyd uu keeni jiray waa laga diiday adugu arrimo jira awgooda looga diiday soo 30 dheyd lahaa oo laga diiday uu qaat 2 dheyda looga reebay 30kii dheyd 2 dheyd iyo bar barku calaala miya baa loo ogolaaday waxaa maanta uu noo sheegay 2 dheydna iyo barkiina laga jaray dadku waa is yaqaan Galmudug maanta ilaahay nabadu ka dhigay barwaaqo ka dhigay dadka ganacsatada ahu waa dadka indhahooda waa dadka hadii la ku maadeegaanada ku soo kordhiya bilicda iyo hadii la ku idmahayo waxa arrimaha bulshada loo baahan yahay waxaan galabta marka tabasho kana liibaan ninka liibaan Axmed Xasan oo iyo Umar Shido labadan nin ummadda reer Galmudug waxa uu sheegaynaa iyo ummadda reer Cadaadaba annagu qaadan mayno waxa uu liibaan keenay liibaan annagu waxa uu haysanay nin hadda musharrax madaxweyne Galmudug loo soo wada weeyay 30 dheyd oo aan ku lahayn airboorkaas oo ninkii lagu furay airboorkaas oo qofna ka soo degay diyaarad ugu horeeyay ninkii ka soo dejiyay weeyay airboorka caadi oo qof ka qaada jiran cadaada ka qaad waa ninkii ugu horeeyay ninkaan ka soo dejiya airboorka caadi maantana heerka uu marayo dadkoo dhan waa ogyihiin iyadoo aan laga aqoon wadankan wax diyaarad ah ninkii soo dejiyay weey maanta wuxuu lahaa dhuusa mareeb in laga dejiyo quraal in laga dejiyo hadii ay ku idmahayo mudnaanta inuu ilaahdo laba loo reeb 2 maalmood labadii maalmood hadii ay ku idmahayo uu liibaanka leeyahay iyo rag kale uu wato oo asagu soo dirsaday ay cag saareen haddaba anagu midaan sheegaynaa ana hor 30kii dheydaan rabnaa dawadeenu waa 30 dheyd haddii aan helno waa daw mudnaana u leenahay sharafaan u leenahay dadkii hadii ilaahay ku idmahayo inta soo sameeyo ayagoo airboorada iyo wax walba ayagoo lagu furay oo ayagu ay diyaaradaha keeneen la xaqiray haddana misala la sii xaqiray horta anagu 30kii dheyd aan u fadhinaa waxa uu sheegay ummadda islaamka oo la maqlaysa haddii naloo diido oo aan weyno airboorkaas inaysan diyaarad qaad soo aadi iyo wadada wadaan baawur marayn diyaarad qaadaan soo degayn annagu hadii ilaahay ku idmaa haday tagto hadii ilaahay ku idmahayo shishaan ku dilahayaa sokaan ku dilayna baa si maray airboorkiisa ka soo degayn